damacii khawaarijta ee ku aadanaa in ay maanta la wareegaan deegaanka Teedaan ee hoostaga degmada Maxaas ee gobolka Hiiraan ayaa fashil ku soo dhamaaday xogihii u dambeeyay ee aynu ka helayno dagaal saakay ilaa maqribkan soo gaaray oo si awood ah lagu maqooniyay khawaarijtii is soo maqiiqday qaniimooyinka laga haysto iyo jabka khawaarijta gaaray ayaan rabaa inaan idinka dabageeyo soo dhawaada muuqaalka like saara siina share gareeba maasantiin khawaarijta nafla caariga ah ayaa saakay aroornimadii hore waxay isku soo maqiiqeen difaacyada ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed iyo kuwa deegaanku ay markaasi uga jiraan afaafka hore ee degmada Maxaas ee gobolka Hiiraan khawaarijta weerarka soo qaaday ayaa dhowr jiho ka soo kala baxay iyagoo doonayay markaasi in ay dhowr ka jiho ay ku qabsadaan deegaanka Teedaan ee gobolka Hiiraan halka oo muddooyinkii u dambeeyay talis weyn u ahayd ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed khawaarijtu waxa ay ka soo weerartameen dhowr jiho sida jihada koonfurta quman ee dhanka deegaanka Sulay jiha kale oo dhanka iyo Waabweyn iyo jiha kale oo ah deegaanka Goobo oo markaasi kaga aadan Teedaan dhanka iyo bariga khawaarijtii weerarka soo qaaday waxa u jilib dhigay isla markaana si awood ah ku joojiyay ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed iyo kuwa deegaanka oo iskaashanaya saakay aroornimadii hore dagaalkii bilowday ayaana duhurnimadii soo gaaray shabaabka khawaarijta ah gurmad uga soo baxay deegaanka Goobo oo ilaa 4 cabdibila ah waxa jidka u galay ciidan macwiisley ah oo iyagu markaasi joojiyay halkaana dagaal adag kula galay dibna u ceyriyay oo ilaa Goobo eryanaya duhurnimadii ayaa la kala nastay iyadoo khawaarijtu wali aysan quusanin walow lagu jibiyay furimihii koobaad ee dhanka Sulay iyo sidoo kale dhanka Waabweyn iyadoo lagu jibiyay subaxnimadii horeba isla markaana qoryo qaniimo ah iyo meydad laga qabtay ayaa waxay sadkeeyay kuwa deegaanka Inabaal xaqiisa ka soo weerartamay ee Goobo ku aadana kuwa oo ilaa galabta soo gaaray galabta ayaa dagaal kale oo xoogani waxa uu halkaasi ku dhaxmaray ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed waxayna ka bixiyeen godadkii ay islaamaanta qoteen oo ay islahaayeen difaacyadiina ku sii dheereysta waxa dib loogu celiyay oo dib loogu riixay halkii ay ka yimaadeen ee deegaanka Goobo halka oo maqribkan dhul howd ah oo u dhaxeeyo Goobo iyo Inabaal ifku ugu dumay dagaalku isagoo socdo iyagana la sii ciirsanay walow ay adag tahay in hadda xog rasmi ah laga helo maadaama deegaanada lagu dagaalamayo ay yihiin dhul howd ah isla markaana anteenooyinku ay aad ugu yar yihiin haddana dadka ka agdhow ee xiriirada aan la sameynay ayaa noo sheegay in xabaddu ay u ifduunsatay dhanka deegaanka Goobo ee Maxaas xaggi xilligan aan idila hadlayana waxa la soo tibinayaa in duqeyn culus ay ku socoto firxadkii khawaarijta ee maanta ku soo jabay weerarkii ay qaadeen sida ay noo xaqiijinayaan ila ku sugan deegaanka Teedaan oo ah halka ugu dhow ee laga heli karo xogta dagaalada halkaasi ka socda waxa ay sheegayaan in khawaarijta ilaa 10 iyo dhowr qori oo ay ku jiraan 2 BKM laga furtay oo laga qaniimeystay waa khawaarijtii ka soo duulaan tagtay dhanka deegaanka Sulay ee halkaasi ay markaasi u jilib dhigeen rag culus oo ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ka mid ah waxa jiro iyana meydad tirabeel ah oo khawaarijtu ay ka carareen kuwa oo ilaa iyo hadda wali aan la soo ururinin balse berri iyo wixii ka dambeeyo la heli doono muuqaaladooda iyo xogtooda tirakoobkooda rasmiga ah xilligan duqeymo culus oo ay fulinayaan ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ayaa khawaarijtii firxadka ah ku socdo waxayna hadda jugtu ka sii dhacaysa ayaa la leeyahay afaafka hore ee deegaanka Goobo dhulkii ay markaasi islahaayeen ku siqa ayaa hadda waxa si buuxda gacanta ugu haya ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed taliska ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ee deegaanadaasi degmada Maxaas hoostaga oo ka kala tirsan qaybaha 27aad iyo 21aad ayaana xaqiijiyay in ay si guul ah markaasi u fashiliyeen qorshihii ay soo maleegeen khawaarijtu ee ay doonayeen in ay kula wareegaan deegaanka Teedaan ee gobolka Hiiraan khawaarijta nafla caariga ah oo fahamsan ama ka warqabta in dhowaan duulaan culus uu ku soo socdo ayaa iska dhaadhicisay in ay deegaanka Teedaan
ay la wareegaan isla markaana ku siqaan deegaano badan oo markaasi iyaga ka baxsan si ay hoos ugu dhigaan rajada laga qabo in markaasi weerar lagu qaado. ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ayaa markaasi iyagu waxay isku diyaarinayaan howlgal ballaaran oo guud ahaanba khawaarijta looga cirib tirayo dalka, waxayna dhowaan xaqiijin doonaan in ay meesha ka saaraan hadaladii dhowaan ay wadeen canaasiirta ee ku aadanaa in ay khawaarijtu dalka la wareegi doonaan.